غير شرط الصناعة ونكسر waxaan gudagalaynaa qaybta labaad ee barnaamijkeena oo qaybta ugu dheer waxaan rajeynayaa in hadalkeena iyo waxaan rajeynayaa in hadalka ku dheereyn doonin waxaan u yeerayaa senator Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan oo faahfaahin yar ka bixin doona sharciga kadibna waxaan gali doonaa qaybtii soo jeedinada insha Allah soo dhawaad senator waxaan leeyahay markuu soo dhawaada aqalka sare runtii maanta waxaan u fadhinaa waxa weeye oo aan dilin kugu yeeray inaad aragtidiina iyo ra'yigiina ka dhiibataan inta sharciyeed aqalka sare hor yaallo oo ah inta sharciyeedka maareynta deegaanka oo ay soo gudbisay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada runtii inta sharciyeedkani waxa weeye waxa uu soo maray sida ay gudoomiyaha guddiga khayraadka ay sheegtay golaha wasiirada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya haddana waxa gacanta ku hayo oo aan gacanta ku haynaa waa aqalka sare runtii aqalka sare waa aqal deesaad ogtiinba matalo bulshada Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadirba marka inta aan sharcigan gacanta ku haynaa waxaan go'aan ku gaarnay bal inaan aragtidooda iyo fikirkooda ayaguna ay geliyaan laba maalin baan ishaynay sharciga waa isla akhrina waa isla dhameynay koow ilaa bilow taladooda iyo ra'yigooda runtii aad iyo aad u ah mid aad u sareeyana way ku darsadeen idinkana maanta waxaan ka filaynaa insha Allah hadduu Alla idmo inaan ka helno taladiina iyo ra'yigiina sharcigana insha Allah ka dhex muuqan doono hadduu Alla idmo sharcigani maxaa kalifay in aan gaarsiino inaan isugu yeerno maamul goboleedyadii gobolka Banaadir bulshada rayidka waxa weeye muhiimadda uu leeyahay runtii sharciyo badan baa aqalka ka gudbay laakiin sharcigan muhiimadda uu leeyahay bay'adu waxa weeye runtii waa baahida maanta dadka Soomaaliyeed haysato waan garan karnaa wasaqowga dhulkayaga meesha u gaarsiisay oo waxa weeye tayada hawadeena iyo sida ay u xuntaa caafimaadka bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan caruurtayada dhibaatada deegaanka ka yimaada waxa ay ku hayaan arrimahaas oo dhan baa waxay kaliftay waxa weeye inuu sharcigan noqdo in sharci la isla wadaago sharciga waxa ka dhalan doona waxa weeye waajibaadyo xuquuqo kadibna macnaha ciqaab ka dhalanayso marka waxa in dadka oo dhan ay ahaadaan ku wada jiraan ayaan ugu talagalay sharcigan waxa ugu weyn oo aan runtii u baahan inaan arkeenna inuu muhiim u yahay waa xaalufinta dhulka deegaanka waad aragteen dhuxushayada dhulkii oo dhan waa la jaray dhuxul baa laga dhigtay dhibaatada ugu weyn ee maanta haysatana waxa weeye in geedihii iyo waxyaabihii macnaha Soomaaliya caan ku ahayd sababi kartana yareynta iyo abaaraha iyo roob la'aanta qayb weyn ka tahay arrimahaasi waxa weeye runtii waa arrimo u baahan inaan iska wada kaashano oo aan qof walba anaga naga mid ah uu kaalintiisa ka qaata waxa ugu weyn oo kale waxa weeye kiimikooyinka anagu dhulka iyaga bad weyn baan leenahay badeenaasi awoodayada dhaqaale ahaan dalkeena waan garan karnaa intuu la egyahay iyo sida aan u ilaalin karno maalin walba waxaan ka cabanaa sumeyn badda oo la sumeeyo oo dhibaato badan loo gaarsiiyo oo aan dhibaatadaasi ay ummadii dib ugu soo laabatay waxa aan soo jeedinay runtii in wasaaraddan aan u sheegnay in lagu daro manhajka waxbarashada sababta waxa weeye ardayda haddaysan helin aysan ogaanin waxaani qashinkaani wadada ma lagu ridi karaa mise meeshii lagu tiraa ayaa la geen karaa hadduusan cunuga asagoo yar uusan ku barbaarin waxa weeye waxa aan naga haysto waad aragtaan maanta caasimadayadii sida uu eg tahay waxaan u maleynayaa oo maanta ku sugannahay waad u jeedaan meel walba waxa yaala qashin waxa yaala intaasoo isa saaran cidda laga sugayo iyo cidda ilaalinaysana waxa weeye waxaan u keenaysaa deegaankii iyo bay'adii oo dhan in ay u keento dhibaato caafimaad marka waxa weeye walaalayaal runtii laba qodob waa in kugu yeernay waa qodobkooda waxa weeye ina ra'yigiina iyo taladiina sharcigan waxa isleedihiin lagu darana aad noo soo gudbisaan oo aan tixgelino
midda labaadna waxa weeye inaad nagala qayb qaadataan in bulshada Soomaaliyeed la gaarsiiyo oo wasaaradda warfaafinta gaar ahaan ay wacyigelin suuban u suubiso ummadda Soomaaliyeed inaan geedka la jari karin in bay'adaan ilaashano inaan dhulka la wasaqeyn karin in meelaha biyaha la aan iska hagaajino waxa weeye sharcigaana uu noqdo midka lagu dabaqayo qof kasta oo Soomaali ah oo ku xadgudbaa arrimahaasi in la horgeenayo sharciga oo wixii uu macnaheedu mutaystana lagu marinayo marka arrimahaas ugu muhiimsan aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa runtii waxa weeye sharcigan waxa ka mid ah oo aad ogaanaysaan uu ku jiro in la sameyn doono guddi qaran ee deegaanka ah guddi qaran oo deegaanka ayaa sharcigan ku jiro guddigaas qaranku wuxuu ka koobnaan doonaa wasaaradda deegaanka wasaaradda maamul goboleedyada garyaqaanka guud dad fara badan baa ku jiro oo loo sameyn doono guddigaasi ayaa insha Allah suubin doono in macnaheedu waxa la wixii ku saabsan sharcigan iyo dhameystirkiisa iyo xagidiisaba insha Allah guddigaas ayaa noo xisaarnaan doona insha Allah hadduu Allah idmo aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan rabnaa maanta insha Allah hadduu Allah idmo inaan kala boganno marka dhammaantiin mar kale waxaan leeyahay soo dhawaada magacaygu waa Cimraan Axmed Cabdulqaadir jaamacadda Muqdisho kuriyadda culuumta caafimaadka madaxa caafimaadka bulshada runtii bilow fiican iyo talaabo fiican tilmaamaysa dowlad dhiska iyo soo kabashada in sharci noocan la helo waay deegaanka loo maareynaya deegaanka loo ilaalinaya deegaanka hadduu dhibaato gaartan dhibaatadii ay ku soo laabanaysa horta waxa loo socda in bini'aadamka la ilaaliyo waay dhibaato walba oo deegaanka gaartay waxaa dhibaatada ay ku soo laabanaysaa dadka waay caafimaadka bulshada hadda markii laga hadlayo anaga waxaan naqaanaa cudur sababe laakiin waxaa jiro waxyaaba loo yaqaano go'aamiyaasha caafimaadka ama saameeyayaasha deegaanka kowka ah ama biyada marka waxay tilmaamaysaa runtii muhiimaddeeda in maanta aan u joogno arrintan inaan ka shaqeyno waqtigoo yaraay darteeda iyo hadda waqtiga si yar qodobka koowaadaan wax yar ku darsan lahay oo comments ah qodobka labaad cutubka koowaad qodobka labaad baarista inta badan waxaa xooga saarteen ama deegaanka markaa ka hadlaysa inta badan hawada xooga saarayseen marka deegaanka waa badan yahay biyaha iyo ciid iyo maadaama saameyn baaris laga hadlayay in la muujiyo biyaha iyo ciidda iyo waxyaabaha kaloo wasaqeyn lahay qodobka sagaalaad isla macnaha nambarka sagaalaad isla qodobka labaad saameynta farsamaynta qashinka waxaa igala habboon maareynta in la dhaho sida 15 aad ku tilmaanteen oo ah maareynta deegaanka maareynta in la aruuriyo in la raro haddii farsamo loo heli karo Soomaaliya ma ogi farsamadeeda in la farsameeyo kadibna meeshii looga takhalusi lahaa in la geeyo 32 sunta cayaanka maadaama aad qeexdeen waxaa muhiim ah in la qeexo bacriminta maxaa loola jeedaa iyo dawooyinka kale in la qeexo waayo because bacriminta beeraleyda isticmaala inta badan dawooyinka haddii maxaa loola jeedaa ma xoolaha la siinaya mise ma ciidda ma waxaan kaloo qabaa 50 qashinka nooc kasta qashin yahay qashin maxaa waaye in la qeexo ayadana muhiim ah arka qashinka firkiis maxaa loola jeedaa waa mahadsantiin ka akhrinay 2 maalmood aan haynay waxyaalaha beddelka u baahan wuxuu isugu jiraa wax iska qoraal khalad qoraalka oo iska typos oo iska sahlan khaladaad waxaan ku aragnay fikirka ah waxa kaloo isku qasan doorarka wasaaradihii traditional oo established ahaa soo jireenka ahaa shaqooyinka ay qaban jireen haddii maalin walba hay'ad cusubta la abuuro hay'adaasna door loo raadiyo waxaa imaanaya clash kuwii traditionalka marka waxaan ku aragnay doorarka iyo shaqooyinka roles iyo responsibility-ga inay wax badan oo clash ku jiraan
waxaa kaloo oo ay ku suurtageli kartaa keliya in haddii la rabo inuu fulo qorshahan lagu ilaalinayo deegaanka waxaa qasaba inuu multi agency ahaado curintiisa soo saaritiisa implementationkiisa sababta la rabo inay multi agency u noqoto ama wasaarado badan iyo hay-ado badan uga qayb galaan waxaa ka mid ah maxaa yeele fulintiiba hadha loo rabaa fulintiiba waxay tahay eeda naftirkeedu multi agency marka waa in hindiso sharciyeedkan uu kasoo maxdaa oo kasoo burqadaa wasaaro kala duwan nidaamka documentiga u qoran yahay waxaan rabnaa intaan detailka u gelin firqa hebel waxaan u malaysaa inay muhiim tahay sida guud oo haykalka uu samaysan yahay documentiga naftirkiisa inaan isla qaadano kadib waa sahlan tahay firqa hebel saas laga sameeyo waxaa lagu daro waxaa lagu bedelo waa wax sahla laakiin nidaamka u qoran yahay horta inaan isla helno waxaa loo qori karay nidaam mawduuca ama thematic si ah oo waxaa leeyahay masalan hawada wixii ku saabsan macluumaad hawada gooniha loo qoro wixii ku saabsan webiyada wixii badda wixii ku saabsan loo qoro si markaas ay u muuqato wasaaradihii hore oo soo jireenka ah oo traditionalka ah roolalka ay leeyihiin iyo meelaha ay ka qusayso laakiin waxaad u malaysaa inuu documentiga isku dhex filaqsan yahay gebigiisuba haddaan ka soo qaadno biyaha ciidda roobabka webiyada sunta cayayaanka kulligood waxa waaye waa door soo jireen ah oo wasaaradda beeraha ay weligeed lahaan jirtay shaqa waddan ka socota waaye waxaad u malaysaa wax walba halkan waxaa ku qoran in wax walba ay cusub yihiin oo hadda lagu wada baraarugay wax shaqa oo ka socota environmentinga ay jirin uu documentigu u qoran yahay which is far from the truth wasaarada shaqaynaya jira wasaaradda khayraadka badda wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda xanaanada xoolaha beeraha shaqo waxay qabtaan ay qarniyo qaban jireen oo haddana ay usii wadaan marka ka soo qaad meesha sumaha leeyahay pesticide-ka fertilizerska waa wax oo ardayda xataa jaamacadaha laga soo baxay leh waa xirfad dhisan oo ka soo bilaabatay ilaa iyo jaamacad ilaa iyo master ilaa iyo wasaarado u dhisan yihiin waxaa ogtihiin waddankeena in laga isticmaalo DDT oo adduunyada laga joojiyay waa ogtihiin waa sun Soomaaliya waa laga isticmaalaa dunida dhan waa laga mamnuucay waa sun wax walba dilayso cayayaan iyo noolaa kaysan dili karina cancer u keenaysa laakiin ur ma leh dhadhan ma leh midabna ma leh soo magac kasta lagu qori karaa Soomaaliyana 1960skii iyo 50skii adduunyada laga mamnuucay Soomaaliya beeraha kaliya looma isticmaalo waxa loo isticmaalaa dhibta xoolaha lagu waxeeyaa loo isticmaalo dhib ahaan mararka qaarkoodna haddii carruurta ka jirto oo maqaarka xoga dhacana waa laga mariyaa marka shaqadaas waxaa haya oo iska leh oo kiimikadaas yaqaano oo takhasuskeeda leh oo arday u soo baxday oo departmentiyo wasaarado leh jira marka haddii la yiraahdo waxaan sameynaynaa agency cusub wasaaradihii establishedka marka tusaalahaas waxaan kugu sheegay in meesha clash of roles badan uu ku jiro kasoo qaad haddaan gudaha u galo marka clashka ku jira haddaan qodob u taabto waxay noqonaysaa waqti aad u dheer waa soo in la soo koobay u baahan tahay misalan baseadaasha roobabka dabaylaha qoraxda biyaha heerarka webiyada fatahaadiyaha waa shaqo weligeed soo jirtay wasaaradan loo xisaaray marka haddii la yiraahdo waxa la sameeyay waxa la sameeyay agency ama wasaaradii bay'adan sameeynay roolka xagaha lagu daro waa in lagu wada heshiiyaa oo wasaaradihii dib loogu noqdaa haddii la rabo marka in environmentiga laga shaqeeyo environmentiga waxa koowaad ay qusayso waxa weeyaan wax soo saarkii xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha iyo wasaaradda kalluumaysiga haddaan point hore u galo xataa magaca haddaad fiirisid waxaa malaysaa in xataa ilaalinta maareynta mar haddaad tidhaahdid waxaad ilaalinaysaa maareynna lama ilaalin waxaa la ilaalinaya waa deegaanka malaha turjumaadii in yar oo qalad ka dhacday waayo waxaan malaynaa waxa laga soo qaatay environmental safeguarding and management act marka meeshaas kolleyba iyaha lagu daro ilaalinta iyo maareynta waa iska point yar waxaan rabaa inaan marka in yar dul maro qodobadii oo marka aan ka soo saaray oo aad si gooni u quseeya wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha waxay leedahay oo maamushaa oo qalabkeeda leedahay 69 meelood goobood oo lagu cabiro roobabka dabaylaha qoraxda oo kulligood wax soo saar oo dhabar u ah wax soo saarka beeraha Okay, weather stations waa qodobka 13aad oo qodobka 12aad cutubka 3aad qodobka 12aad weather stationska marka haddii la rabo in la saadaaliyo roobabka dabaylaha qoraxda heerarka webiyada fatahaadiyada kulligood waxaa iska leh waa shaqo ay leedahay maxaan ku yiraahdaa wasaaradda beeraha
haddii la rabo markii wax laga qabto ama saameynta ay ku leedahay environmentiga la ogaado halkaas hawshaasina ka jirtaa. Okay, qaybta aan isleeyahay waa ugu muhiimsan tahay oo la rabay inay balkiga noqoto nabigana wuxuu dhahay alxaj alcarafa carafa waxa uu documentigan wax la yiraahdo environmental impact assessment oo ah raadadka saameynta ay ku yeelan karto waa qodobka 18aad asaga naftirkiisu fulintiisa yaa haddii ay dhibaato sun wadanka ka timaado yaa iskala fulintiisa yaa environmental impact assessmentiga mashaariicda qaranka waxa ogtiin mashaariic badan oo qaranka ay jirto kulligoodna saameyn kula deegaanka mashaariicdaas waxay ugu badan yihiin mashaariic beereed marka waxa la yidhi in la sameeyo impactiga ay ku leedahay environmentiga yaa assess garaynaya waxa la yidhi waxaa assess garaynaysaa wasaaradda expertise-ka u lahayd ma aha wasaaraddan marka taas oo dhan waxay isku soo koobaysaa roolalka waxaan maybe aan kusoo gabagabeynayaa 2 daqiiqaa siiseen soomaalida waxa weeyaan arrin muhiim ah la soo hordhigaya markay daalaan waxa la naga daaya go'aanka aan iska qaadano waxay qaataan midka ugu liita waxa ila tahay in waqti intaan ka badan ugu baahnaan lahaa haddii aan waqti badan oo discussion la heli karin in wasaaradaha iyo hay'adaha ay aad u qusayso environmentiga sida fisherieska beeraha xanaanada xoolaha in waqti la siiyo documentigan ku study gareeyaan ayadana ay soo gudbiyaan maxaa yeelay marna ma shaqayn karto in waajibaad wasaarad leedahay wasaaradda kale expertise-kiisa ma lahayn wasaaradda la soo dhisay expertise-kii ama khibradii lahayd marka waxaan rajaynaynaa inaan haddii la yiraahdo inta meel point aan calaamadeeyay oo ii qoran mid walba aanu dul istaagno oo niraahno firqad hebel waxaan u maleynayaa maanta inay qaadan doonto qofkiiba in u baahan yahay ugu yaraan nus saac ama hal saac soo aan helno wasaaradaha wax soo saarka iyo khayraadka inay helaan inay soo gudbiyaan maxaa anaga hal maalin kaliya aan hayna documentiga waana salaamantiin waxaan rabaa markaa inaad aad hoosta uga xariiqo sida la rabo sidaan waaye maaragtay waxaan kaloo aan dhihi lahaa tallaabo fiican oo loo baahan yahay in lagu daydo marka sharciyada tan la dhaafinayo golayaasha la dhaafinayo in la maray tahay waxaan kaloo ku raacsanahay Dr. Maxamed Weli waxaan ku raacsanahay inkastoo ay tallaabo hore loo qaaday tahay haddana inay mudnayd waqti intaan ka badan inay mudnayd oo la siiyo maxaan ku raahdaa fadhiyadan aan hal kaliya lagu soo koobin dhowr fadhi mataqaanaa wax lagaga bogan karin wax kan yihiin inta arrinta haddaan kaga baxo waxaan isleeyahay aniga qodobkeeda koowaad wuxuu yahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada shaqo fiican ayay haysaa waana wax hadda ku soo kordhay maamulkeena ku soo kordhay laakiin marka aad fiiriso sida wasaaradaha iyo loo sameeyo markaad fiiriso tirada wasaaradaha iyo magacyada loo bixiyaa dowladdii rayidka ahayd markay jirtay waxaa go'aamin jiray baarlamaanka go'aamin jiray maarta wasiirka koowaad markuu wax soo saarayo tiradu raba iskama samayn karin isagii madaxweynihiisa inta tashadaan tiradeeda rabaanna wasiirna ma magacaabi jirin waxbaa jira mid walbana xilkiisana wuxuu ahaa xil qayaxan buu ahaa laakiin sanooyinkan dambeeto wixii ka dambeeyey carte ka dambeeyey dib loo dhisay dowladnimadeenna waxay ku xiran tahay dadka markaa jooga magacyada ula baxaan iyo sida ay yeelaan iyo xeelka u kala dhiibaan sidaas darteed ma hubno berritay noqon doonta ma hubno maanta wasaaraddan way jirtaa magacaasay leedahay ninka soo socda wuxuu yeeli doonaa lama yaqaan waxa laga yaabaa magac kale inuu bixiyo ama iyada dhanba inuu meesha ka saaro waxaan hadda aragnay kuwa inta magac loo bixiyey la tirtiray kuwa kale la keenay kuwa la isku daray xeer marka la sameynayo waa in maskaxda lagu hayaa mustaqbalka fog iyo maxaan ku rahdaa jiritaankiisa sidaas darteed qodobka 12aad waxa uu mas'uuliyadda saarayaa wasaaradda deegaanka iyo cimilada isbeddelka cimilada waxaa aniga igala habboon inaan saas loo qeexin oo la yiraahdo wasaaradda ku hawlan ama hay'adda ku hawlan ama hay'adda mas'uulka ka in la yiraahdo ajbara laga yaabaa midda in magac kale loo bixiyo mataqaana marka xeerkaaga aad hadda bixinaysana labadii bari la joogaba waxa ma ka bedeli kartid maanta kan uu kula socon doonaa waxa fiican marka inaad meel sare aad geysid oo hadhowto waxa kale ay soo geli karaan inay isdiidi doonin markaad xaqiiqada jirta iyo wixii aad hore u sii talgashay qodobka labaad
waxaan isleeyahay guddiga qaran ee deegaanka waa qodobka 14aad waxaa ku jira guddiga waxaa xubin ka ah guddiga xubno ka socda guddiga khayraadka iyo bii'ada ee baarlamaanka guddiyada tan iyo howlahaas la qabanayo waa howlo fulineed baarlamaankan wuxuu u taagan yahay inuu korjoogteeyo howlaha fulinta inuu korjoogteeyo in la kala ilaaliyaa fiican waxaan aniga isleeyahay waxay ku habboon tahay guddi baarlamaan uusan xubin ka noqon guddi wax fulinaya uusan xubin ka noqon maxaa jiro waa dadkii dabageli lahaa wax ku qabsan lahaa beri waxaa laydin dhihi karaa idinkaaba meesha jooga sheekad meesha ku xirmaysanaa waxbaad ka ogeydeen haddii baarlamaanka la dhaho korjeegtayntiisii bay wax u dhimaysaa markaan marka haddii la rabo xataa inay wax la socdaan waxay kaga qaybgeli karaan goobjoognimay kaga qaybgeli karaan goobjoog ay uga tegi karaan qodobkayga saddexaad waxaan fiiriyey qodobka 49aad kelimad annaga nagu cusub baa meesha ku taalla eri nagu cusub waxa weeye dhulka qoyan af soomaaliga dadkii yaqaanaa meel u qaadaan ma yaqaanaan mataqaana dhulka hadduu roob ku da'o waa qoyaa soo maha wax kale loola dalnay in la qeexaa fiican waxaana laga soo minguuriyey afafkaa kaleto aan isticmaalayno xeerka marka wixii cusub waxaa lagu sheegaa bogga koobaad oo kelimadaas ama ereygaas waxaa loola jeedaa baa la yidhaahdaa mana ka tirsana dhul qoyanna meesha laguma tilmaamin maarta marka dhulkan qoyan bal xagga ha lagu soo sheega mataqaana wuxuu yahay meesha lagu qeexa qodobka kale wuxuu ka hadlayaa qodobkayga kale wuxuu yahay qodobka afraad qodobka 50aad oo ka hadlaya ilaalinta webiyada sida hadda waxu jiraan markaad fiiriso horta webiyada dadac ku nool beerahooday ku waraabsadaan wax ka lumaystaan waxaa hadda soo baxaysa markaa inayna u dhowaan karin webiga u dhowaan karin maanta weliba kasbaa inta loo jabiyaa biyaha lagu waraabsadaa waana hadhowtana waa la iska xiraa haddii roob ku yimaado mar dambeeto iyadoon la xirinna fatahaaday waxbaa ka dhaca in la nidaamiyo waa u baahanta laakiin nidaamintaas waxay rabtaa iyadana in kaabiyaasha maxaan ku rahdaa oo waraabka in wax laga qabtay u baahan tahay haddaad qofka wax u diido waa inaad wax kaleeto u furtaa mataqaana marka dadkan isticmaalaya webiga oo aan magaalooyinka joogin noloshooda ay ku xiran tahay waa lagu diiday keliya anfici mayso mataqaana waxaa fiican marka qodobka sida ugu macquulsan bal in la fiiriyo waxaa kaloo ka muhiimsan webiyadeenna waayadan dambe waxaa ku soo kordhay qashiqub baa laga dhigtay yani haddaad tagto degmooyinka ku teedsan webiyada ku teedsan oo dhan qashinka waa la soo qaadaa meeshaa lagu daadiyaa halkaana laguma xusin mataqaana qashiqubkaasi laguma xusin marka waxaa fiicnaan lahayd maadaama aan ka hadlayno deegaanka iyo aan ka hadlayno in si gaara qodob gaara laga dhigo ama faqrad maxaan ku rahdaa lagu tilmaamo qashinkaa si gaara looga hadlay maxaa jira biyahaas aad ogtihiin webiga ma ahanoo keliya in lagu waraabsado beeraha waa la cabbaa haddaad qashin ku daadiso waxaad wax u dhimaysaa caafimaadka dadka u dhimaysaa mataqaanaa haddana haddaad beledweyne tagto buloburta haddaad tagto haddaad afgooya tagto qashin qubkooda wuxuu noqday webigu noqday marka arrintaa waxay u baahanta si gaara in loo fiiriyo waxaan okay time's up waa dadka waqtiga kugu dhamaadaa la yiri marka qodobada kaleeto haddaanan waxba isku hayn xitaa hadda waa laga reebaan dhahayaa maarta waxaan kusoo koobi lahaa waxaa la yidhi ma badnaba taas mina waxaa muxuu ahaa aan dhihi lahaa aniga waxay lahayd horta waa muhiim in sharcigan oo kaleeta la helo xeerkan oo kale in la helo waa muhiim laakiin xeerka haddii loo sameeyo xeer samayn un darteed waxba ma taraayo xeerka waxaa la rabaa inuu wax soo kordhiyaa la rabaa inta badanna markii aad tiraahdo waxaas waa la yeeli karaa waxaasna lama yeeli kara hadaad tiraahdo aad dul dhigto waxaad u baahan tahay awooddii fulinta inaad leedahay dowladaheenna ilaahay hadda soo jiray iyo tabartooda intay la ekaayeen wax badan iskama bedeli doonaan mustaqbalka dhow xitaa mataqaanaa maxaa jira waxay u baahan tahay
karti bay u baahan tahay oo dadeed bay u baahan tahay imkaaniyaad bay u baahan tahay xoolay u baahan tahay inaad marka tiraahdo anigu waa isdaafiyo oo sharci baan ka dejiyo sharciga inuusan fulaynin waxaa ka fiican in sharciga aan samaysanayna lagu jaangooyo xaaladaha aan ku jirno iyo tabarteenna fulineed in lagu jaangooyo aniga waxaan arkayaa 101 baa meeshaan ku qoran waxaan isdhihi lahaa malaha nuskood xitaa way nagu badan tahay maarta xogaa yaroo annagana duruufteena ka tarjumaya baahidaan qabnoona mataqaan wax nooga qabanaya oo la fulin karo ayaan ku koobi lahaa ma aqaan sida wax looga qaban karo laakiin arrintaas waxaan rabay iyadana inaan meesha ka soo mahadsantiin iyagu soo koobaya waxay ahayd qodobka 13aad dhaqaalaha deegaanka marka laga hadlayo waxaa la yidhi wasaaradda ayaa mas-uul ka ah maamulka sanduuqa waxaa fiicneed markaa in qiimaha lagu qeexo qodobka 13aad cutubkiisa saddexaad kan kale waxaan rabaa inaan ku darsado guddiga qaranka ee deegaanka waxaa la yidhi guddoomiyaha waxaa ka noqonaysaa ama wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada xubno ka socda wasaaradaha xubno badanaa lagu qeexay annaga waxay nala tahay in lagu daro ama lagu caddeeyo xubinnimada gobolka banaadir iyo xubinnimada bahda caafimaadka arrinta kale waxay ahayd kala soo jeedin aan rabno in anaga ku darno guddiga la sameynayo waa inay noqdaan dad khibrad u leh oo la soo xuli doono ilaa laba isla dhala taxta haday ku jiraan waa isoo keen in aan lagu dabaqin 4.5 iyo in adeerkay waayo wasiirku isla yihiin iyo waxaas in laga joojiyo door muhiimna ay ka qaataan dumarka Soomaaliyeed oo aqoon-yahanadana qayb ay ku noqdaan in lagu qeexo in dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay leedahay in guddigan ama wasaaraddu loo isticmaalo social media iyo warbaahinta si bulshada qaybeeda kala duwan ay u gaarto anaga dad yaraan nahay oo access u yeeshana halkaan imaano boqolaan naga aqoon badan dad oo xirfadooda ay tahay deegaanka ayaa laga yaabaa in banaanka taagan yihiin waa in loo marsiyo social media iyo warbaahinta wacyigelin la sameeyo warbaahinta ay tagaan xubno ka socdo wasaaradda ama guddiyadan oo arrimahan quseeyo tan kale waxaan rabaa inaan ku soo koobo in la qabto kulmo u gaara dumarka sababtoo ah marka laga hadlayo environmental deegaan maamada guriga joogto waxaa laga yaabaa inuu inta u dhiibto qashinka tiraado banaanka iskaga soo daadi ma tababarno wax ma fahamsano marka waxaa la rabaa in dadkaas oo kale wacyigelin dheeraad ah la siiyo si ay bulshada ay wax u fahmaan la arko in la sii daadajiyo ilaa heer degmo kale meel walban ay ka muuqdaan waxaad arkay haddoo kale xarumaha waxaa jiro kambaniyo lacaga ka qaato guryaha bishii $5 laga qaadaa maama waxaa jirta aan heli karin $5 inay bixiso qashinka intee geenay waa inaan qaada markaa xaliimo gurigeed aan geeyaano ku daadiya hirdeeda xaliimo cunugeeda soo baxay uu cunaha marka yaa mas-uuliyaddaas iska leh waa in isla xisaabtan uu meesha yimaada ugu dambeyn idinkoo aad u mahadsan waxaa la rabaa waxaa dhacdo sharciyo badan oo hadda ka hor la ansixiyey oo kale wasiirka marka xilka laga qaado waxaa laga yaabaa kan kala imaado inuu meesha iska dhigo uusan dhaqan gelin waxyaabo saas oo kale marka in la adkeeyo sharciga soomaalida sharciga way ka baqdaa haddii si adag tusaale waxaa idinku filmeel dheer ha aadina waddankan bajaajyada ka shaqeeya A iyo B aa loo sameeyey sharci soomaa waa in saasna loo sameeyo waan mahadsantihiin cutub magacaygu waa maxamed muxudiin cali xubin ka mid ah macadka cilmi baarista ee jaamacadda City University of Muqdisho Soomaaliya haddaan guda gala hawshii aan ku soo istaagay cutubka saddexaad qodobkiisa 13aad nambarkiisa 4aad dhaqaalaha deegaanka waa in loo isticmaalaa fulinta waajibaadka wasaaradda ayuu leeyahay ha loo isticmaalo muxuma wasaaraddu ma waxay isticmaalaysaa xeerkaaga ku qoran ma wada fulinaysaa ma waajibaadkeeda ma waajibaad kale intaa jira su'aalahaan aan qaba ka waxaan jeclaan lahaa in meesha la bayaamiyo waxa wasaaraddu u qabanayso ama limitkeeda la sheego maadaama dhaqaale la adeegsanayo waddankeena ogna heer dhaqaale meesha u maray cutubka 4aad qodobkiisa soo afwan cutubka 5aad qodobkiisa 24aad warbixinta deegaanka waxaa ku qoran in wasaaradda deegaanku ay sameynayso sanadkiiba hal mar sahmin ay ku sameynayso xaaladda deegaan ee Soomaaliya
ayna ula wadaagayso xukuumadda iyo golaha shacabka kaliya halkaana waxaan ku aragnay maamul goboleedyada dad matalaya wasiiradii maamul goboleedyada jooga weli ma arkin haddaanan been sheegaynin Somaliland wax ka socda iyo meelaha kale ma aan arkin waan bogaadinayaa in meeshaas lagu xusiyo oo aad loo bayaaniyo la yiraahdo dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyada hoos taga in la yiraahdo oo lala wadaago laba waxaan boorinayaa in wax lagu daro oo la dhaho sanadkiiba mar meesha ay ka tahay Soomaaliya waxay qabtaa 4 season after Soomaaliya ku hadlo 4 xilli ay qabtaa xilliyana barwaaqan ku jirnaa xilliyana abaara jira ama duruuf dabiici ha noqoto ama waxa anaga kalif ha noqoto waxa loo baahan yahay mar walba saameyntu isbedelaysa Soomaaliya mar waxa ka jira musiibooyin dabiici ah oo ugu horeeyaan fatahaadaha xogahaas oo idil waxa loo baahan yahay in la record gareeyo dataas la xareeyana la wadaago intii ay qusaysay waa sababta aan u leeyahay hal mar yaa laga dhigane bal hal la badiyo markay ugu yar tahay 4 jeer ha laga dhigo hana laga dhigo maamul goboleedyada dhulka Soomaaliya ku yaalo idil in dataas la wadaago maadaama ay xog muhiim ay tahay cutubka lixaad qodobkiisa 32 heerarka tayada biyaha waxa moodaa in aad loo soo koobay oo biyihii la yiri biyaha la cabo biyaha loo isticmaalo beeraha waxaan jeclaan lahaa ra'yigayga in biyaha la cabo maadaama ay nuucyo badan yihiin nuucyada biyaha la cabo la xuso si loo ogaado limitka biyaha anaga aan ka hadlayno ilaa Soomaalida qaar waxay cabaan ceelasha qaarna waxay cabaan wabiyada qaar harahay cabaan yani in biyahaas la bayaamiyo fiicnaa lahayd way ga soo idlaatay at the end waxaan rabaa inaan aad u bogaadiyo qodob aan ka dhawaajiyo dad horan ay ka dhawaajiyeen waxaan oo xeer ah oo halkaan ku qoran haddaana runta isu sheegin waa isu ceeb sheegaynaa waxay ku fiican yihiin marka horeba anugu cid qorto ma garanayo oo ma dhigi karo reer hebel qoray ama guddi hebel qoray exactly uma dhaaran karo laakiin guddiga hadda noo xil saaran shaqada noo soo qabtay qaar laha siiyay wax badan halkaan ku qoran sidoo Dr. Baafo sheegana wax badan inaan qorno oo aan fuli karin waxa ka wacan wax yar inaan qorno oo aan fuli karno fulinta shay muhiim waaye Soomaaliya dhibaatooyin fara badan haysta waxaan in la fuliyana waxay u baahan yihiin laftirkooda budget fara badan ay u baahan yihiin waxa ku guraanadaya ugu dambeyntii oranaya hal kalimo waa muhiim maadaama la rabo xeerarkan inay ka hergalaan dhulka dawladda Soomaaliya waa muhiim in laga talageliyo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya oo idil haddii aan laga talagelin waxa dhumaya geographical space la rabay in xeerarkan ay ka shaqeeyaan waa mahadsantiin guddiga khayraadka xildhibaan Saynab madaxda u tahay tiimkeeda ee maanta halkan nagu martiqaaday fursadana na siiyay waxaa jira guddiyadoo dhan qaar baa fursadana siiya hadaan bulshada rayidka qaarna nama siiyaan marka kuwa sida gaarka noo tixgeliyo oo fursadaha siiya aqalka sare waa ku mahadsantiin anigu magacaygu waa Xuseen Macalin Iimaan waxaan madax ka ahay hay'ad yiraahdo Amaana Consulting and Training ama macad la talin iyo tababar ah oo 30 jirsaday oo muddo dheer dalkan u soo shaqeynayay howlahaana maanta farxadda gaarka oo aan meesha ka muujinayo waxay tahay laba howlood oo labadaba aan wax ka aqaan arinta halkan loo fadhiyo oo laga doodayo oo sheeka barlamaan iyo wax la ansixinayo muddo dheer maadaama barlamaanku soo jiray hore oo wax ka ogahay iyo arinta kale laga hadlayo arrimaha deegaanka oo shaqadeedii iyo wixii aan bartay beeraha iyo deegaanka labadii baan dhex taaganahay maanta marka waa meelaan ra'yigayga ka cabiran karo talaan ka soo jeedinayaa qodobo badan oo aan wax ka dhihi lahaa waxaa hortayda ii yiri saaxiibadayda iga horeeyay oo iga aftahansanaa yaa si fiican u sheegay maxamed weli ka yahay cabdi axmed baafo ka mid yahay oo muxuu ahay ka mid yahay cabdirasaaq ka mid yahay iyo rag kale oo badan iyo weliba aan ku daray Faisal ninkii ka socday wasaaradda petroolka oo qodobo badan oo aan wax ka sheegi lahaa si fiican u qeexay kuwa ku noqon maayo meesha kaliya dhameystirka u baahan baan rabaa oo khibradeyda ay tahay inaan halkan tala ka soo jeediyo
si hawshan aqalka sare la taal siday ka yeeli lahaayeen xogta aan rabo inaan siiyo waxay tahay horta waxaan wasaaraduhu kala difaacanayaan oo beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka iyo deegaanka iyo environmentiga iyo kan kala difaacanaya waxa waaye geedka galleyda ah ee taagan xididadana ciid buu kula jiraa korna oxygen buu ka qaataa biyaha lagu shubaa webigana waa laga waraabeeya ceelasha halkan marka isla geedkii galleyda ahaa baa qaybna laga dhigay wasaaradda beeraha la siiyey qaybna waxaa la siiyey xanaanada xoolaha qaybna waxaa la siiyey kalluumaysiga qaybna waxaa la siiyey hawadii iyo wixii wasaaradda environment la siiyey waa halkii shay baa la qaybiyey adduunyada waxaan aan qaybinayn oo dhan hal wasaarad bay isku yihiin waana inay ahaatay ahayd dadka dhalinyarada ah odayaashu ay la fahmayaan waxaan sheegi doono laakiin dadka dhalinyarada halkan fadhiyaan rabaa inaan u biyaaniyo halkii wasaarad ee la rabay waxaan wasaaradaha aan tirinayn oo dhan dibaarmenna inay ahaadaan bay ahayd asal ahaan dibaarmennadii baa wasaarada laga dhigay maxaa jira idaacadda anoo fadhiya maalin waxaan maqlayay annagoo reer hibil ah ma qaadanayno wasaarad hiblana lagu qoray idaacadaha ka qaylinay odayaashii baan u dusi waa raadiyey hadda ka horna tv-gan ka sheegay maxaad ku diideen baana wasaarad hibla dhaadhac male bay yidhaahdeen marka nin walba wasaarad weyn buu raadinayaa marka wasaaradihii weynaa markay dhammaadeen oo dadkii wax la gaara la waayey xafiiska prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka maxaa la samaynaa galeydii in marka xididkeedii iyo sabuulkeedii iyo ciiddeedii iyo caradeedii iyo biyo lagu waraabinayo mid walba la yidhaahdo aduu wasaaraddaa yar hayso adna taa hayso adna taa reer hebel maasha allah wasaaradaana la siiyey si loo yidhaahdo waa reeraa lagu maqsuudiyo waaye waxaan wasaaradaha aad u jeedaan waa wax reera lagu maqsuudiyo waaye oo 4.5ka lagu buuxiyo waaye laakiin asal inay dibaarmenna ahaadaan bay ahayd horta saa u fahma arrintaan marka usoo jeedinayo aqalka sare iyo la taliyaasha iyo abukaatiyaalka halkan fadhiya oo saaxiibadeyda ay fadhiyaan iyo madaxdii maamul goboleedyada ka timid wasiiradii iyo gobolka banaadir ay fadhiyaan aqalka sare waxaan idiin soo jeedin lahaa talada soo socota idinkoo og baarlamaanada wax ka dhacaya iyo wasaaradaha haddii mashruuc world bank ama waxaa maalgelinaysay ahdabla ama qadar baa lacag laga keen la yidhaahdo oo la tuhmo sankaa lala raacaa wasaarad walba waxay isku daydaa mashruucaas waa la kala jiitaa qolo walba inay iyada la hoos keena isku dayaan dhaadhicii luflufka halkaa laga raadiyaa dhaqanka soomaalida saa noqday baarlamaanka iyo aqalka sare waxa inay ku milmaan ma rabno waxaan rabnaa talada aan soo jeedinayno wasaaradaha sidooda hadda ay noo yihiin wasaaradaha noogu ahaadaan ileen dad baa lagu qancinayaa saas laakiin waxaan rabnaa meeshaan hadda kala jiidashada ay ka jirto oon aqalka sare raba inaan soo jeediyo waxyaalaha lagu faano baarlamaanada marka la dhex joogo waxaa ka mid ah wasaaraddu inay tidhaahdo annaga 10 sharci aan gudbinay 5 sharci baan ansixinay kana ansixinay baarlamaankan uu ku faano la dedejiyo hidi hobey sharcigan hidi hobey ma galo maanta inta yaal ogolaada ama ogolaana kan kii ciyaarta lagu gudbin lahaa maaha haddii saa lagu gudbiyana dagaal wasaaradeed baa ka bilaabmaya halkan waad maqlayseen wasaaradaha kala duwan dadkii magacooda ku hadlaya waxay sheegayeen ani waxaan qabaa in wasaaradaha ay ka dhaxayso arrinta laba loo kala saaro midna waxaa waaye job descriptionkii ama shaqadii soomaaliyeed hay-adaha ay qaban lahaayeen say u kala qaban lahaayeen shaqada u kala lahaan lahaayeen guddi ha loo saaro oo wasaaradaha ka kooban aqalka sarena dad ha ku darsado ha la ishraafo maxaa jira ani wasaaradihii baan hadda la hadlay qaarkood oo soo warwareystay ma iska aragteen baan ku yidhi waxaan wasaaradaha overlapka isku wada kor saaran sharciyadaha isku haysataan iyo shaqooyinkan biyaha annagaa leh hawada annagaa leh baddi annagaa leh laisku haysto ma ka iska aragteen haa waa iska soo aragnay wax meel ma isla dhigteen maya waxay iyaga meel isla dhigi waayeen ku heshiin waayeen bay rabaan inay aqalka sare u saarayaan ama baarlamaanka dhexe eedda iska gudbinayaan eedda ha qaadina iyaga u yeera wasaaradaha guddi ka sameeya ha ku heshiiyaan shaqada job descriptionka ay shaqooyinka ay kala leeyihiin ha la xadido kow midda sharciga ah oo abukaatayaashana ay maqlayaan iyo fulinteeda iyo ninkii ku gafa sidii loo keeni lahaa ama loogu dacweyn lahaa ama loogu ciqaabi lahaa caalamka oo dhan waxay leeyihiin hay-ad nin baa igaga hormaray saaxiibkaya uu sheegay hay-adda national environmental agency la yidhaahdo oo iyadu ama badda ha gasho arrintaa
ama beera ha gasho ama biyo ha gasho ama xoolo ha gasho iyada ku shuqul leh oo dadka ku maxkamadeyn karta oo sharciyadan daba socota adduunyada meel walba ka jirta Kenyadana ugu dhow wadanka agteena kale oo wadan walba leh adduunyada war sida adduunyada u dhaqantay waaye aragnimadooda aan qaadano idinkuna yaan waxba la idin taqantiqin oo ansixiya la idin dhihin anaga waxaan kala talinaynaa waxaan meel lagu hubin inaan la ansixinin arintan iyada marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo waxaa soo socda waxaan kala saarnaa midna waa job description midna waa shuruucdan oo hataa haddii lagu gafo ciqaab ka dhalan karto ama xeer saaki qof baa yiri xeer loo bixiyo xeerkan oo wax walba ay ka dhalan karaan fulintiisa iyo job description tii job description waxaan ku iri hay'adaha ka soo heshiiyaan meel hal isla soo dhigo qolo walba qayb ka mid ah rootiga loo kala gooy sidii departmentada u kala lahayn loo kala siiyo laakiin midaan sharciga ah waxa soo socda haddaad tam yeeli weysaan taladan wasaaraddan hadday laba sharci idin soo gudbisay ama saddex oo 108 qodob ka kooban mid baa 120 qodob soo wada oo noocan oo kale mid kalena 120 bay soo wada mid kalena way soo wada waana duplicate wixii dhan waa wax is wada leh oo isla qodobadan ka hadlay marka meeqa qodob oo wada environment iyo xoolo iyo beero oo is wada saaran yaad ansixin kartaan birito arrimaha rag iga horeeya ka hadlay markaan leeyahay oo maxawila ka hadlay oo Cabdi Baafo ka hadlay oo waxa ka hadlay Faisal baa ka hadlaan leeyahay waa hoostan ka xariiqaya wax la iska dedejiyo tiro badan oo la ansixiyo oo bir meel aan marayn ma anfacayse shuruucdan inta isu geysaan maxaad ka qabtaa arrin maxaa ka khuseeyay wasaaradda beeraha ka ururiya environment ka qaada hal sharci oo 70 qodob ama 80 qodob oo laakiin wax dhan khuseeya ama 100 qodob ha gaarto laakiin kulligood ka dhaxeeyo on overlap iyo duplicate iyo soo celcelin badan iyo isku soo noqnoqonayn hal laga shaqeeyo khubarana hal laga howlgeliyo dadka badanaa howlahan ka shaqeeya badankoodna oo gacanta u taagay hal ansixiyo leh waa naqaanaa waa wiilasheeni waa saaxiibadeeni waa dhalinyaradeeni waa ardadeeni gacantaaga waa la yaqaanaa gacantaag dalkan ma ku soconayo maxaa jira 63 sano baan nahay wadanka ugu tuugsi badan ugu faqiir badan ugu tuuganimo badan oo maxaa corruptionka number 1 kaga jiraan nahay dibdejintaan baan dhigtay halka 63 sano dalalkii naga dambeeyay baan dhaafay arintan aan ka digtoonaana waxba yaa la dibdejin khubaradiina u yeerta baashan aan ka baaraan degno dib ha loo eego sharciyadan wasaaradaha dhanna wasaarad walba waxay keentaa loo marina waa loo dibdejin hadii la yiraahdo 20 sharci oo isku mid ah meesha ka soo bixi doonto waa mahadsantiin qodobka aan rabo inaan qodobadan gudigalaya waqtigu aad u yar saaxiibadeeda soo socdo inaan siiyo waqti ayaan rabaa qodobka labaad haddaan gudagalo eribixinta ayaan rabaa inaan gudagalo qodobka 9 qodobka biyaha qodobka 9 iyo 10aad fiiriya qaybta biyaha Soomaaliya marka laga hadlayo wabiyada oo kale wabiyadiina labada wabi waxa waaye waa transboundary waters waaye inta badan waxay ka yimaadaan Ethiopia gacan nagu jiraan biyahooda gorgortona kama galin wax xiriir ah aan Ethiopia la leenahay biyahana ma jiraan waxyaalo daraasada hadda aan sameynayna qayb weyn ayay ka tahay marka waa in maxaa la yiraahdaa biyaha aan la wadaagno maadaama hadda Juba iyo Shabeelle dooxooyinkooda ay iskugu soo shubaan 60% in ka badan ee lagu yimaadaan xagga sare ee ka yimaadaan caqabada waaweyn way nagu hayaan waa in ayadana laga fikiraa in waan u bixinaa ilaa kama tanaasuli karno hadaan already aan qaadano inta nagu heerarsan oo kaliya biyahaasi xagga ka imaanayo gacan kuma hayno waa inaan qaabkiya maxaa la yiraahdaa aan heshiis ula sameeysan lahayn iyo qaabka inaan ku soo darsanaa maxaa la yiraahdaa biyahaasi waa in muhiimada xoog aan saarnaa wabiyada hadda biyaha nagu imaanaya xagga sare ma haysano wax la yiraahdo environmental flow wax la yiraahdaa jiro adduunyada ay ku xisaabtantaa ay ka mid tahay biyaha ugu yar ee ku noolaan karaan xayawaanka ku nool wabiga hadda ma haysan aniga waa zero adduunkana kama dhicin wadan wabiyadooda zero naqdaan ee qalalo ee shacabka ay ku socdaan banooni lagu ciyaaro qashin lagu soo shubo way yar tahay hadii si jirto maxaa yeelay adduunyada waxay qiimaysaa wax la yiraahdo environmental flow wax la yiraahdaa jiro environmental flow-na ma haysano waa in lagu soo daraa qaabka loo maareyn lahaa environmental flow-gan wuxuu nagala dhaxeeyaa wadankaas aan sheegay biyahaas gacantooda ku jiraan
haddaanan gorgorto lala sameynin problemkaani wuu jiri doonaa labada waswadin waxay noqon doonaan laba webi oo laga sheekeyn doono caruurteena iyo aan ugu sheekeyn doono sanadaha soo socdo waxaan rabaa inaan gudaha usii galo laba qodob oo kale muhiim ah oo isdolfuulo ayaan rabaa inaan kala qaado qodobka cutubka 11aad qodobkiisa 56aad meesha waxaa ku qoran qodobka 1aad qofka raba inuu fuliyo mashruuca waa inuu sameeyaa waxa waajib ku ah waa inuu sameeyo qiimeynta meelna waxaa ku yaalo qodobka 59aad waxaa loo saarayaa guddi sameeyo qiimeynta qof mashruuc soo codsaday waxaa mamnuuc ah inuu asiga wax uu la yimaado uu soo aas-aasto uu sameeyo uu keensado si uu u fuliyo mashruucaasi waxay doonto ay noqon kartaa marka waa inuu jiro guddi madax bannaan oo environmental impact assessment sameynayo oo ka madax bannaan maxaa la yidhaahdaa dadkan mashaariicda keensanayo waa in guddigaasi la ansixiyaa guddigaasi markii la ansixiyo kadib waa in ayaga mashruuc ay samaystaan meesha qofka ah waa in si kale loo farsameeyo ama guddigaas meeshaan ku qoran intan waxaa ku qoran qof intan waxaa ku qoran maxaa la yidhaahdaa warbixin ku xusan qodobkaani waa inuu diyaariyaa khabiir madax bannaan marka taasi waa in dib loo habeeya waxaa kalaan rabaa in lagu soo daro qaybta ku daridda qodobka 57aad deegaanka saameynta ay ku leedahay cimilada waa in maxaa la yidhaahdaa qaybtaani waa 57aad waa in lagu soo daraa aan idhaahdo markii EIA-da la sameeyo waxaa dhici karta mashruuc in la fasaxo gadaal waxaa laga ogaaday mashruucii oo socdo in maxaa la yidhaahdaa caqabad ay ku tahay waxaa la xisaabiyey tusaale ahaan raydka wasaqowga hawada meesha uu marayo mashruuca markuu bilaabanayo existing situationka markaas taagana la cabiray waxaa la ogaaday okay inuu yahay mashruuca inuu sanado qaadanayo sanadihii qaadanayay waa in bil walba ama maxaa la yidhaahdaa in lala socdaa maxaa la yidhaahdaa mashruucaasi saameynta uu ku leeyahay haddii la ogaado marka mashruucaasi in uu ku leeyahay saameyn xag negative ah in meesha mashruuca uu joogo in lagu damiyo ama lagu istaajiyo stop la yiraahdo waa in ayadana la sameeyaa maxaa la yiraahdaa caqabadaha mashruuca markii la bixiyo kadib lagu joojin karo waa inay cadaataa taasi waa mid waxaan rabaa inaan ku soo daro qodob kale inaan lagu dari karo haddii macquul tahay qodobka 9aad cutubka 9aad aan iraahdo qodobkiisa 54aad faahfaahin dheeri ah kuma jirto qodobka 2aad waa in lagu daraa maxaa la yiraahdaa early warning-ka ama hadda musiibooyinkan haysta waxaa ka mid ah si loo joogo anagoo roobab noo diina waxaa arkaysaa gobolka hiiraan ama dhinacan kale beledweyne oo kale in fatahaadi ay soo galaan waanin ma jiro dowladda etoobiyana nama siiso maxaa la yidhahdaa information sharing nagama dhexeeyo xagga webiga ah waxyaalaha problemka nagu haya ka tirsan tahay anagana marka macnaha raashina meeshaan ka qaadayna lacagaan iska aruurinayna raashin wax uma qabto waddankeena maxaa bulshadaas waxa wax u qabanaya waa information sharing waa inay ka helaan waddanka upstreamka ah haddaanan heli weynay waxaa mar walba aan ku jiraynaa marka anagana inaan qaxno aan biyabax ka baxno aan meel kale aan aadno problemkan uu mar kasta uuna qabsanaya marka waa inay ku jirtaa dadkeena maxaa ka hortag ay heli karaan waa inay heli karaan early action waa in la sameeyaa dadkaasi maxaa loo diyaariyey waa inay ku caddahay qodobkaasi horena waa loogu yiri waxaa lagu xusay oo keliya qaaca hawada ayaa lagu xusay meeshaasi waa ma ahan waa in labadaas qodob aan lagu soo daraa qodobkayga ugu dambeeyo aan rabo inaan ku xuso waxay tahay heshiiskaani ama maxaa la yidhahdaa ansixintaani waxay la tahay in lagu soo lifaaqo baahida keentay marka hore inaan akhrino qodob walba ama maxaa la yidhahdaa ama maxaa la yidhahdaa xeer walba wuxuu leeyahay baahi ayaa keento baahidii waa in la arkaa fiican waxaan dhihi lahaa kulan ka sii weyn in la qabto wadda macnaa waqtiga aan haysanin aad ayuu u yaraa 3 cisho ilaa 2 cisho ayaan macnaha aan qaadanay inaan ku soo akhrino qodobkaana uu ka weyn yahay marka waxaan jeclaan lahaa in qodobo ama technically dadka ay qusayso in waqti badan la geliyo oo si fiican loo soo akhriyo loo soo taraan bixiyo kadibna maxaa la yiraahdaa dadka ay qusaysana wax ay ka soo saaraan research buuxa aad ma santiin waa ku faraxsanahay inaan soo istaago maadaama jiilkii sagaashameeyadii waxay ka yar aan ahay oo maasha Allah dad oo iga waaweyn oo khibrad badan aan ka helay aan hortaaganahay marka hore Allah ayaa mahad iska leh marka labaad guddiga khayraadka aad aan ugu mahadcelinaynaa iyo dawladda marka labaadna waxaan salaamayaa qof walba oo halkan fadhiya anoo ku salaamaya mansabka iyo inta wuxuu meesha ku fadhiyo intaas kadib magacayga waa Shukri Maxamed Xuseen waxaan ka socdaa ururada deegaanka oo gaar ahaan loo soo gaabiyay
Somali Environment Development Organization. Waxaan rabaa inaan ka hadlo bogga 42 cutubka 13 maareynta qashinka qodobka 69 maareynta qashinka. qof iga horeeya hadda si fiican uga hadlay arintaas, laakiin ani waxaan rabay markii laga hadlayay qeexitaanka ereyada qashinka in si fiican loogu laabto. qashinka guud ahaan hadda waa ognahay hospitals badan jiro. marka aan ka hadlo medical waste-ga ka hadlaya. medical waste-ga markii laga hadlayo maareynta kaleete in si gaar ah qodobadan hadii la awoodi karo in loogu soo daro, maxaa yeelay hospitaalada badanaa dawladda gacanta ma ku hayso, oo hospitaalo waxaa jiraan oo private ah. qashinkiina ma ahan wax midaysan oo dawladda ay xakameyn karto ma ahan. soo waxaa laga yaabaa qof masaakiin ah oo maanta sharcigan iyo waxyaabahan oo kale aan gaareynin, oo laga yaabo inuu magaaladii joogo oo social media kale uusan isticmaalin, ama xataa laga yaabo awlaad badan oo wax fahansan aan haysan. laga yaabo inuu dhahayo yani dhibaatada yareeyo qashinka qaad, haddana aan dhibaato soo gaareyso. qofkaas laga yaabay xataa cudurrada ugu yar hepatitis-ka HIV-ga kale inuu ku dhaco, taasna ay sababi karto inuu noloshiisa ku waayo. soo marka in uu heli karo qofkaas magdhow inuu heli haddii qofkaas la dabagalo tusaale ahaan oo ku dhacay tusaale cudurka HIV-ga kale, waxaa dhici karta in la soo qaban karo meeshii oo ka shaqeynayay, meeshii ka handle gareynayay waxyaabahaas oo kaleete. soo markii qashin la dhaho ani si gaar ah waxaa ii saameysay maadaama public health ahaa oo dadka jiilka hadda soo baxayna ahay. medical waste-ga aad ii saameysay. haddii la sameyn karo qodob cad oo looga hadli karo ee jirto in lagu soo daro, aadaan u mahadsantihiin. qodobka 13 ee ka hadlaya dhaqaalaha sanduuqa waxaa lagu xusay in wasaaradda deegaanku ay maamulayso. maxaa goobta wasaaradda maaliyadda ka reebay oo iyadu ay u noqon weyday midii barnaamijka fudeydin lahayd environmental trust fund-ka. sidoo kaleeto lacago waxaa jira jariimaadka deegaanka laga galo, lacago waxaa jira loo qoondeeyo. yaa maamulaya, habkee loo qaybinaya, yaa xisaabtanka iskale. arrintaas oo dhan qodobka aad ugu macada waxaan jeclaan lahaa in faahfaahin laga bixiyo. sidoo kaleeto waxaa jira dhaqaale la yiraahdo climate finance, weli wadankeenu ma gaadhin, laakiinse midka laftigiisu uu inaga dhiman yahay. sidee loo waafajinayaa? bogga 22aad qodobka 24aad wuxuu isaguna sheegayaa wasakhda dareeraha. wuxuu leeyahay wasakhda dareeraha iyo nidaamka maamulka bulaacadaha waxaa la soo saari doonaa xeer nidaamyo gaara. maxaa sababta qodobkan goonida looga saaray maxay bay tahay? maxaa loo raacin waayey? bogga 23aad qodobka 39aad isaguna wuxuu sheegayaa ruqsadda laga bixinayo walxaha halista ah ama walxaha khatarta ah. isaguna wuxuu qeexayaa in xeer nidaamyo dambe la soo saari doono. maxaa isaga laftigiisa qodobkan gooni loogu saaray oo loo waxa weeye faahfaahin loogu dari waayo? bogga 26aad qodobka 43aad ilaalinta iyo ka hortagga wasakhda deegaanka isaguna waxa la sheegay in wasaaradda kale la tashanayso. marka wasaaradaha ay la tashanayso maxaa loogu dhex xusi waayo 1 2 3? waayo waa cross-cutting issue hadhow toole xeerar kaleeto iyo meelo kaleeto madaxa la gali karaa. bogga 29aad qodobka 49aad ee ku saabsan waxaa aad u dhawaajiyay waxa weeye Professor Bafo arrinta dhulka qoyan in qeexitaanyadana lagu sameeyo. dhulka qoyan maxaa loola jeedaa? ma webiyada, ma jasiiradaha, ma goobaha badaha, ma kaymaha? isaguna qeexitaan buu u baahan yahay. sidoo kaleeto kuma xidhna waxaa jira xeerar la yidhaaho Rio Conventions oo 3 qodobka laftigiisa laguma dhex xusino uu ka baxsan yahay. marka in la raaciyo waan jeclaan lahaa. bogga 33aad cutubka 9aad qodobka 54aad ee ku saabsan isbeddelka cimilada aad baa loo koobay. waxaan jeclaan lahaa in faahfaahin lagu sii sameeyo oo lagu sii daro waxyaalihii xaalufka dhulka keenayay, dhirta, daaqa, noolayaasha kala duwan. heshiisyadiina ma waafaqsana. heshiisyada 16 xabo waxa lagu xusay qaybta ugu dambaysa ee meesha. marka waxa haboon heshiis kasteeta in qodobka lagu dhex xuso. qodobka 74aad ee bogga 47aad qodobka ku saabsan ilaalinta iyo maareynta kheyraadka badda
isna ma yara faahfaahsana oo tusaale ahaan aqoon xog buuxa lagama keenin khayraadka badda ee la doonaya waa kuwee ma waxa weeyaan ma kalluunka ma macdanta badda ku jirta ma noolayaasha kala duwan ee badda waxa weeyaan ku noolba maxaa xal u ah dhibaatooyin hadday soo gaadhaan xaalafka loo geystay iyo jirimooyinka laga waxa weeyaan ku dhaca sidee hadhow tole loo tixraacaya yaa dabagali doona yaa maamulaya arrintaasoo dhanna kuma xusna bogga 12 qodobka 55 isaguna waa qodobka kala guurka cadaaladda ku dhisan waxa weeye qeexid faahfaahsan buu u baahan yahay direct translation uma la sameeyey midda kaleete aan ku soo gabagabeynaya sidee sharciyada caalamiga maalin kasteeto sharciyo caalamiya la soo qaadaa cop waxa dhacay cop 27 baa dhacay sanadkii dhaweytoole 7 waxa laga soo qaaday sharciyadiina inaga inama waafaqsana inagana inagama turjumayaan marka sidee maalin walba sharciyadaasi aynu soo qaadanayno intaynu burburka ku jirnay iyo hadda sidee loo waafajin karaa sharcigan kuwa kaleetee wadankana loogu dabaqi karaa intaasaan kusoo koobi salaam calaykum muhiima inaan ka hadlo cutubka labaad bogga 7 qodobka 6 waxaan rajayn doonaa dadka noodka qaadaya inay si fiican meeshan ila socon doonaan haddii la insha Allah meesha ay ku qoran tahay marka qodobka 6 oo qashinka ah cabsitaar carbu waaye oo waxa ka socdaa wax loo yaqaan ururada u doogdo arrimaha deegaanka bulshada rayidkana waa ka mid ah magaceygana waa cabsitaar carbu qodobkaas 6 wuxuu u baahan yahay faahfaahin dheer ah qashinka muxuu yahay horta in la faahfaahiyo ma qashin qatar ku ah miyaa nolosheena ma qashin sun ahaa ma qashin halis ku ah marka hore in la faahfaahiyo aad ay muhiim u yihiin asaas la qodobkaas sidoo kale in wax lagu soo darno waa soo jeedinayna laana marka aan ka hadlayna arrimaha deegaanka waxaan ka hadlaynaa xalalka 10 sano soo socdo maadaama nolosheena iyo deegaankeena isku xiran yihiin qodob afraad hadii lagu soo dari karo aad soo jeedin lahaa oo ah qofka soo dhoofinaya dunida waa arkaysaa wadamo badan qashinka soo dhoofisto in lagu daro meeshaas kale qofku wax soo ma la soo dhoofin karo qashin halis ku ah nolosheena oo kale ama qatar ku ah oo kale si kale waa loo qori karaa laakiin hal qodob afraad in lagu ziyaadiyo ay aad u jeclaan lahay taa waa soo jeedin mar walba ka hadlayno deegaan waxaan ka hadlaynaa baahiyada xalalka 10 iyo 100 sano soo socdo taasoo bulshadeena aan rabno hal aqoontooda in kor u qaato sidii loo maareyn lahaa qashinka adkaa sidoo kale waxaan rabaa inaan qodob kale aad muhiim ah aan rajayn doono inay taa umalana bogga 43 in ay la soo gudbi doontaan cutubka 13 oo ka hadlaya maareynta qashinka markii la qoraayo xeerarka marka qaarkood hal shay lama sheega Allah meesha waxaa ku qoran qodobka 71 oo mamnuucida ah ayadoo la tixgelinayo dhibaatooyinka deegaanka sharciga wuxuu mamnuucayaa bacda fudud maxaa bacda lagu koobe oo maxaa loo dhihi waayay walxaa ka samaysan balaastikada oo hadda horteena ka muuqdaan ognahay dhibaatooyin halis caafimaad inay ku yihiin deegaankeena marka waxaan rabnaa in qodobkaas la toosiyo hadduu ilaahay insha Allah qodob kale aan rabay oo bilowga ah in asna wax ku daro hadduu ilaahay insha Allah sida ku qoran warbixintii aqrinta saddexaad hindi sharciyeenta ilaalinta maareynta deegaanka guddiga wuxuu ku soo ziyaadiyay qodob 55 qodobkaas waxaa ku qoran kala guurka cadaalad ku dhisan qof walba ma fahmi karo idan in la toosiyo aad u fiicnaan lahayd haddii la heli karo erayo kale oo ka habboon in la isticmaalo in la soo kordhiyana muhiim ma ahayn asla qodobka 55 laakiin haddii ay qasab noqoto in lagu soo kordhiyo xeerkan waa inaad dibi toosin asin lagu sameeyo waqtiga idin bay qaamina wixii kale aan rabane qoraal ku soo gudbin doona haddii ilaahay waa maasantii assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaa laga yaabaa wasaaradaha inay ayaga ka fiiriyaan dhinaca siyaasadda iyo dakhli iyo hebel anna waxaan ka fiirinaa dhinaca kale meesha waxaa ku qoran moogtahay ciqaab xeer ilaaliyana markii ciqaab la arku soo istaagaa marka dhinacaas aan ka fiirinaa waa mahadsantihiin marka u horeysa horta xoogaa waxaa laga yaabaa xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo wasaaradda biyaada iyo nin walba dhinacu deegaanka markii laga hadlayo waa deegaan biyeed ama badda ha noqdo ama webi ha noqdo ama har ha noqdee shuruuciyay leeyihiin baddana wasaaradaha kalluumaysiga iyo tii badda sharci noo yaallaa wixii looga baahda ayagaan la aadaynaa marka xayawaan laga hadlaayana laba nooc waa kuna duurjoog waaye kuna dabjoog waaye markii dabjoog la aadana xanaanada xoolahan la aadaynaa
markii duurjoog la joogana xeerka keliya ee xeerkan uu baabi'inayo waa kaas waa kan duurjoogta kaymaha iyo xayawaanada dabargo'aya oo duurjoog wada waxaasoo dhan wada duurjoogta badda ku jirto xeeraa noo nidaaminayo waa xeerka kalluumaysiga noociisa kan dabargo'aya si uu dabargo'aya waxaas waa noogu qoran annaga marka waxaan la aadaynaa hal xeer oo xeerkan dhulka dhigaya waa xeerka xeerka 15 1969 uu soo baxay xeerkaasoo dhulka la galaa marka xeerkaas wixii uu xallin jirayna si dhaba uma xallinay marka anaga intaasaa naga qusayso xeerkaas wuxuu xallin jiray xayawaanaadka duurjoogga ee haddana dabargo'aya iyo kaymuhu xallinaya kan marka waxaa la rabay kuwaas inuu si fiican u xalliyo kiyaa marka qodobada hadda sidaa ka arkaysid 47 iyo 48 wuxuu ka hadlayaa xaalufun iyo dhir iyo wax ciqaabna ma leh marka ninka wax xaalufiyo oo dembi galo wixii dembi waayaa la yidhi laakiin dembiga ciqaab ma leh marka horta meeshaas labadaas meelba ciqaab loo sameeyo aaday muhiim u tahay ceebaha xeerkan uu leeyahay waxaa ka mid ah wax kasta uu soo sheegayaa xeer nidaamiya u diraya waa soo sheegayaa xeer nidaamiyaashana tiraday ka bateen meesha ku jiro sida dhaqanka hadda markaan dambe annaga caadaysanay wasaaradaheena xeer nidaamiya hadday noo diraan ma soo saaraan marka guddiga inuu naga ilaaliyo waxaan annaga baahi weyn aan u qabnaa hadda ayaan hore waa ogtiin geed quwaaxaa la jaray nimanaa jaray baabiiyey waa la soo qabtay maxkamadaa la keenay marka maxkamadda la keenan maxkamaddu maxay kaa sugaysaa ninkan inaa qodob u soo qabatidoo dhahd qodob hebel uu ku gafay haddaadan dhihin qodob hebel ku gafay ninkan waa beri oo iska tegayaa ilaan dembi ma gelini marka meesha hadda waxaa la rabaa in qodobkaasi dembi laga dhiga geed quwaaxaa la jaray haye ninka jarayna ama waa la garaxay ama xabsiyaa la geeyey ama waa inay sheegtaa maxkamad marka waxaan rabnaa marka annaga dhinacaasaan muhiim noo ah inaan ka fiirino qodobka 14 ee guddiyuu dhisa guddigaas wuxuu ka shaqaynayaa ilaalinta sharciga waayahay sharciga yaa ilaalinaya hadhow yaa dadkaasi haddii waxaan u gafaan qabanaya xafiiska xeer ilaalinta guddigu kuma jiro hadda gariiqaanka guudaa lagu soo daray gariiqaanka guud muxuu kuu qabanaa marka maxkamadda intuu qaado waxaan ma geynayey heshiisyaduu kuu saxiixaa marka waxaa waaye markii heshiisyada lasoo marinaya asaga meesha fadhiyo magaciisu ku qortay waa intaasu wax kale ma sida hadda wasaaradaha ay hebel ay ku qortay lahaayeen marka guddigaasi haddii sharcigan in la fuliyo la rabo ciddii fulinayd xafiiska xeer ilaalinta waa marka xubin ayaa la sheegin oo hebel yaan leeyahay xafiiska xeer ilaalinta guddiga ka mid ah asaga soo magacaawdo qofka u imaanaya marka waxaan ka wadaa fulintana waa in laga fiiriyo guddigaas oo la ogaadaa arrinta waxyaabaha kale ee ayagana in la caddeeyo u baahan saaxiibkaya wixii annaga noo diyaariyey oo sheegi doono qodobade waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye sharcigan kiimikaalka kan beeraha iyo kii nuclearka iyo kii kale wax kasta oo kun qof dili karay kii hal qof dili karay iyo kii maalin suuxin kara ciqaabtooda wuxuu ka dhigaa 1 sano iyo hebel iyo marka meelahaasna waxaa la rabaa ciqaabta in miisaan la saaro oo nin walba wixii uu gafay in la eg lagu ciqaabo ayadana intaas in laga fiiriyo waa u baahannahay duurjoogta xeerarkaas kale duurjoogta kama hadlaan xanaanada xoolaha waxay ka hadashaa xoolaha caadiga ah annaga aan dhaqanno iyo meesha lagu dhaqdo iyo sida loo dhoofiyo iyo baabuurta la saara iyo raashinka la siiyay ka hadashaa marka waa u qoran yahay xeerkooda ugu qoran yahay laakiin duurjoogta halkan xeeraa noo jiro halka xeerna kana baabi'inaya kaas hal hagaajiyo waana mahadsantii ciqaabaha oo aad u fudud dhammaan ciqaabaha ku xusan xeerkan deegaanku waxay geenayaan maxkamad degmay geenayaan waa 3 sano wixii ka hooseeya 2 sano wax ka hooseeya tusaale ahaan waxaad la fiirin kartaan qodobka 27 ama 27aad wuxuu dhigayaa qofka hawada ku sii daaya walxo halis ah waxa lagu xukumayaa 2 sano waxa laga yaabaa walxo halis ah inay dad u dhintaan inay xoolo u dhintaan in aynu kansar ka qaadno oo berri toole dhibaatooyin kale aynu ka dheefno haddana waxa lagu xukumayaa ciqaab aad u liidata waa nonsense wax qiimo uu sameynaya ma jirto waxaad fiirin kartaan oo kale qodobka 50aad ilaalinta webiyada webiga qofkii ilaalin waaya haddii webigii fataho aynu ku weyno xoolo aynu ku weyno dad
haddana wuxuu odhanayaa qofkii dhibaatadaasi sameeyey 3 sano kaliya taa lagu xukumaya aad bay u liidataa ciqaabaha qaarkooda ku jira waxa weeyaan waa 2 bilood 3 bilood inaan iska dhaafnaaba heed kuwaas oo niraahna hadday 2 bilood yihiin ciqaabtoodu waaba inta baadhistu socotaba maxaa laga baadhayaa ciqaabtaas lagaga soo daraya xeerka iyadana ciqaabka waa waxa weeyaan ceeb kale uu leeyahay xeerku waxa ciqaabta 2 bilood iyo 3 bilood waxa laga heli karaa qodobka 80 baa laga heli karaa haddii la fiiriyo ciqaab 2 bilood waa nonsense in laga saaraan rajaynaya oo uu goluhu arrintaasi isbaaro u dhigto waxa ku jira ciqaabo duplicate oo 2 jeer ku soo laabanaya tusaale ahaan qodobka 31 iyo qodobka 83 ciqaabaha ku jira waa duplicate way is duplicate gareynayaan ama se 2 jeer ay soo laabanayaan ciqaabaha ku jira qodobka 80 qodobka 21 waa duplicate mar labaad bay 2 jeer ay isku soo laabanayaan arrinta kale ee aan rabo in duplicate-ka laga saaraa muhiima haddii kale hadhow toole annagana dee qareenaa noo jooga maxkamadaha oo waana la durayaa halkaasna waxaa ku lumaysa xuquuqda ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo deegaankeenna iyo xoolaheenna iyo xayawaankeenna sidoo kale haddaan fiirino qodobka 40 farqadiisa labaad waxaa jira wax loo yaqaano discretionary power of the church oo la odhanayo qofka waxaas iyo waxaa sameeya garsooruhu wuxuu ku xukumi karaa 3 sano ilaa 4 sano discretionary ama awoodda garsooraha ma siinayo xeerkani marka la eego qodobka 4 farqadiisa labaad 81 farqada J wuxuu odhanayaa kaliya 10 sano ku xukumi karaa qofka bal hadduu garsooruhu u tixgelin lahaa uu odhan lahaa 5 kan ku xukun meekan 6 ku xukun ma siinayo optionkaas oo dhan wuxuu odhanayaa kaliya 10 sano which is not legal ama wax aan sharci ahayn weeyaan xeerlaalihii ugu horreeyay sharafta badnaa baa sheegay xeer nidaamiyaal tira beela waxaa laga yaabaa inaad ka tirisaan ilaa 20 xeer nidaamiye goormaa la sameynaya xeer nidaamiyaha waa dhibaato kale oo iyaduna meesha taagan xeerku balanced ma aha inaanu balanced ahayn waxaad ku garan kartaa 78 qodobka 78 iyo qodobka 79 mid wuxuu ka sheekeynayaa qofka ku xadgudba qiimeynta saameynta deegaanka qodob kalena wuxuu ka sheekeynayaa ama ka hadlayaa qofka sameeya ama fuliya mashruuc aan la isla ogolayn kii fuliya mashruuc aan la isla ogolayn oo deegaanka waxyeelo ku ah ciqaab fudud uu siinaya oo 2 sano iyo wixii u dhigmaa qofkii xadgudub la xiriira qiimeyn kii qiimeynta sameeyana wuxuu saarayaa ciqaab weyn kii fulinta sameeyana wuxuu saarayaa ciqaab yar which is not yani wax aan caqliga geli karahayn marnaba waxaa kaloo aan halkaas ku darayaa habqoraalka ciqaabta oo meelaha qaar khaldan su'aal ahaan ciqaabta marka la qorayo waxaa la yiraahdaa kelmadda ama waxay samaysaa micno gaara iyo waxay samaysaa micno gaara waxay yihiin aad bay isugu dhex daarsan yihiin waa confused in la kala habeeya ayaa mudan waxaanad arrintaas ka arki kartaan qodobka 83 ayaad ka fiirin kartaan qodobka 48 xaalufinta dhirta innagu bulsho waxaan nahay reer baadiye xoolo dhaqataa beeralaya isbeddelka cimiladu ha inoo dambeeyo laakiin hadda waxa aan inaan mudan inaan la tacaalo waa in xoolaheenu iyo xayawaankeenu nabad galaan inaan dhirta la xaalufinta dhirta wax ciqaaba oo uu sheegaya ma jirto 48 wuxuu sheegayaa xaalufinta lama ogola balaa wax ciqaaba anu maxaan markaa maxkamadda geyn karaa gacmaha iyo lugahaba xeerka inaga xidhaya xeerka draftkiisa si fiican ha loogu noqdo oo ha la habeeyo marka laga tago ciqaabta arrimo yaroo kooban oo technical oo luuqadeed baan rabaa inaan ka hadlo qodobka 4 wuxuu sheegayaa mabaadii buu sheegayaa xeerkana siisa mabaadii laguma xusi karo siyaasadda mabaadii lagu xusaa waa raalli ahaada wuxuu sheegayaa mabaadiida xeerka waxa loogu noqonayaa buu odhanayaa siyaasadda dib loogu noqonayaa siyaasadda waa ka soo gudubnay siyaasaddii xeerkana ka yimaaday dib looguma noqon karo policy qodobkaas totally ba meesha in laga saaro ayuu mudan yahay qodobka 5aad wuxuu sheegayaa farqadiisa labaad waliba waxay sheegaysaa waxaa dacwad ku soo oogi kara kelmaddaas horaan uga wada hadalay tiimka dacwad oogista xafiiska xeerlaaliyaha guud baa iskale cid kale iskama laha cid kale ma isticmaali karto in laga saaraan iyadna soo jeedin lahayn iyaduna 65 farqada 5aad waxaa ku cad damaanad kelmadda damaanad ama ereyga damaanad xeerlaalintu ma laha cid kale ma iska laha cid kale ma bixin karto maxkamaduhu kaliya bixin kara kelmaddaas iyadana in laga saaro ama ereygaas in iyadana laga saaro ayaa meesha aad u qurux badan qodobka 11aad qodobka 42 dhammaantood waxa ku xusan qofkaasi waxa uu galay faldambiyeed
anu xeer ilaaliyaan ahay ma odhan karo qofkaasi wuxuu galay faldambiyeed maxkamad unbaa caddayn karta qofku inuu faldambiyeed galay waa lagu oogi karaa xeerku wuxuu meel kasta odhanayaa faldambiyeed buu galay waxaa ka quman in la dhaho waxaa lagu oogayaa faldambiyeed already halkan xukunkii baabad setgaraysayba xukunkii baabad riday looma baahna markaas in qofka la geeyo maxkamad waxaana aad ka arki kartaan qodobka 42 farqadiisa shanaad 21 67 68 dhammaan halkaas oo dhan waa ku jiraan arrimaha technicalka ah ee luqadeed oo u baahan in cid sharciga garanaysa loo geeyo xeerka oo si fiican u akhriso waxa ku yaala 41 wasaaradda ayaa dacwad ku soo oogaysa 41 wasaaradda dacwad ma oogi karto tumadaniyana ma oogi karto oo waxa u qaabilsan gareeqaanka guud baa u qaabilsan to ciqaabna ma oogi karto xeer ilaaliyaha guud baa u qaabilsan oo way noo sheegi doonaan tiimkii soo diyaariyay wasaaraddu si dacwadaasi u oogayso iyo sida ay wasaaraddu damaanad u bixinayso damaanadii aan markii dhow soo sheegay waxay odhanayaan wasaaradda bixinaysa wasaaraddu halkay damaanad ku bixin kartaa xeer ilaalin baan bixin karin gareeqaan guud baan bixin karin kaliya maxkamad baa damaanad bixin kartaa damaanadda cid siinaysa waa inay lahaataa awood ay ku fulin karto damaanadaas wasaaradduna ma fulin karto qof ma soo xidhi karto qof ma soo qaban karto qof ma deyn karto waxay samayn kartaa ma jirto markaas sabab halkaa loo qoray ma garanayo ta ugu dambaysan ka hadlaya waxa weeyaan xeerku ma nidaamsana waxa weeyaan waa kulumsi isku dhex daadsan yahay waa iska tirid saas waa la isku wada dhex tuuray waxaanad ka arki kartaan arrintaasi haddaan daliil u sameeyo hadalkayga qodobka 37 waxaa ku qoran shay la xiriira urta meesha waxaa la marayaa iyadoo dhawaqii iyo jabaqdii laga hadlayo ayaa ur la soo gelinaya waxay ahayd qodobka urta ka hadlaya in la raaciyo qodobada hawada ka hadlaya iyo wasaqowga diqowga hawada ama se arrimaha ka dhanka aadowga hawada in la raaciyo ahayd si kale haddaan aqalka sare ugu sheegana de kulle xeerarka Soomaaliya waa iska koobi sheegi maayo meeshii laga soo koobiyey laakiin xeerku somehow koobi buu u muuqdaa waxaan rajaynayaa in xeerka dib loogu noqdo guddiga awood fara badan iska saarto lanaga hubiyo haddii kale berri toole qof aan Soomaali ahayn baa inaga ugaadhsan doona xoolo iyo xayawaan dalkeena naadir ku ah oo aan meel kale jirin maasaa la wada qaylin doonaa la odhan doonaa booliiska iyo xeer ilaalintu maxay u soo qaban lahayn waxaan idin odhan lahaa booliiska iyo xeer ilaalinta idinka hadda gacmaha ka sii xidhinaya gacmaha u fura ciqaabta noo badiya sidoo kalena meelaha xadgudubyada faraha badan ku jiraan dib loogu laabto aad u mahadsantiin dhammaantiin waxaa jira qodobka ah 38 oo ah maareynta walxaha boga 22aad maareynta walxaha halista ah arrintaas waa arrin aad iyo aad u dheer waaye aadana loo taabtay laakiin waxaan rabaa inaan sheego wasaaradda ayadoo la tashanaysa wasaaradaha ay khusayso waxa ay soo saaraysaa xeer nidaamka xakamaynta soo saarista ama soo dejinta walxaha halista ah si waafaqsan halbeegyada caalamiga ah marka arrintan waxaan rabaa inaan ku daro waa fiican tahay hadalka sida loo dhigay laakiin halbeegyada caalamiga ah waddanka muddo 3 sano ah waxaa laga shaqaynaya intaan ka warqabo hay-ad la yidhaahdo hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed sidaan ognahayne Oktoobar sanadkii la soo dhaafay 61 halbeeg ay sheegeen inay ansixiyeen oo caalami ah hal halbeegna ayagaaba sameeyeen marka maalintaas waa la ansixiyey waa la go'aamiyey 24 bisha Oktoobarna waxaa looga dhigay joogis marka haddii la yiraahdo halbeegyo la isticmaalaya caalami waa fiican yihiin laakiin halbeegyadii Soomaaliyeed oo la sameeyey oo ay moos ka hadleen ay cambe ka hadleen ay sisin ka hadleen ay liin ka hadleen halbeegyadoodaas marka shuruuc in hadhowta noqdaan arrintaas marka yaan la moogaanin tan kalenta waxa waaye qodobka naftigiisa oo 38aad qaybtiisa 3aad waxay sheegaysaa walxaha halista ah waxaa ka mid ah sida sunta cayayaanka okay good sunta cayayaanka inkastoo siyaabo kalantood oo haddana hoos loogu sii faahfaahiyey sunta cayayaanka tan kalena waxaa la yidhi walxaha cuntada waqtigeeda dheeree waxaan qiyaasaa inaan lagu jeedo waxyaabaha maaragtay afafka qalaad lagu yidhaha preservatives marka anigu waxaan dhihi lahaa cuntada keliya lama dheeree wax badanaa waqtigooda la dheereeyaa marka sidaas in laga bedelo oo la yidhaahdo badeecadaha maxaa jira cuntooyinkaa jiro cosmeticskaa jiro wax badanaa jiraan oo mataqaanaya oo soo dhaweynayaa oo u mahad celinayaa
aqalka sare khaas ahaan guddiga hadda qaabilsan arrintan jaanis fiican ayay horta keentay inaan wixii aan qabna aan sheegno wixii naga qaldanna aan sheegno wixii naga saxana aan sheegno laakiin waxaad u malaynaysaa waqtiga nala siiyey oo arrimahaas aan ku samaynayno inuu aad iyo aad u xadadan yahay sharcigaan haddeertaan ahaa oo hadda meesha noo hor yaalla wuxuu soo maray barnaamij dheer uu soo maray markii horeeto waxaa la horgeeyey golaha wasiirada oo la rabay in laga ansixiyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa konseen ka keenoo yidhi arrintaanu maahan waa ina marka horeeto annaga aan aragnaa waxyaabo badan oo qaldana ku jira wasiirka waqtigaa la siiyey usbuucaa la siiyey waxaa la yidhi usbuuca wixii aa qabtay ku soo dhammaystir naguna soo celi usbuuca dambe khayr allah siiye wasiirka wasaaraddu u wacay kubaraa annaga aan ku jirnaan ka wada hadalnay wax allaala wixii commenti ah waa ku lifaaqnay markaan committeegii ku lifaaqnay meeshii markii la geeyey intii laga hadli lahaa konseenkii iyo wixii aan qabnay iyo doodii laga qabnay gacantaaga la bilaabay waa la ansixiyey horta aad iyo aad aan taas uga xunna markii la ansixiyeyna wasaaraddu wasiirku markii golihii wasiiradu ansixiyey waxaa loo gudbiyey baarlamaanka warqad baan qornay wasaarad ahaan oo aan leenahay arrintaasu waxyaabo dhaliil badanaa jira waxaan codsanaynaa in lagala tashto inta aan la ansixin sharcigan arrintii sidaan u rabnay may hirgelin waana la ansixiyey oo sida hadda ku cad sharciga xaggaas golaha wasiirada waa laga ansixiyey baarlamaankii federaalka ahna waa laga soo ansixiyey halkaana la keenay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa aqalka sare in uu tixgeliyey annagoona waxba u qorin uu qiyaasay ama uu miisaamay maxaa la yidhaahdaa sharcigaanu dadka uu khuseeyo iyo sida loo waxaynayo iyo inuu xadadkiisu weyn yahay kolleyba intaas wuu tixgelshay jaanis ayuu maanta noo siiyey waxyaabihii aan ka qabno in maxaa la yidhaahdaa aan halkaan ka caddayno raalliga ahaada aniga magacayga waxaa la yidhahdaa xaashi cusmaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqaan ka socdaa halkaan markii waxa weeye sharcigaanu sidiisaba waxaa loogu talagalay wasaaradaha inay isku qabsadaan oo conflict ka dhex abuuraan oo la isjiijiido oo meeshaas heshiis uu ka dhicino wasaaradaha dhexdooda dagaal uu ka dhaco reasonkan sababta waxa uu ah qodobada ku jira waxaad arkaysaa mandate wasaaraddu ay leedahay oo xaq ay u leedahay oo magaceedu ku qoran yahay in qolo kale iska samaysanayso iska habaysanayso hadda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqali wax allaale wixii dhir ku taxalluqa iyo wax allaale wixii xoolo ku taxalluqa iyo wax allaale wixii daaq ku taxalluqa mas-uuliyadaasu waxay saaran tahay maandeed u tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa hay-addii kaleeto marka iyada tiraahda anigana waxbaan ku leeyahay waxa waaye waa conflict abuuris wey waxaan tusaalayaal idinka siinayaa hal yar wax yar oo maxaa la yidhahdaa example oo meeshan ku jira waxaan jeclaan lahaa waqti fiican in la siiyo laakiin maadaama hadda waqtigu cariiri yahay oo time la isku qabsaday guddiga waxaan ka codsanayaa in maalin waqti fiican la siiyo oo doodeenna min A to Z ay gaarto oo wixii aan qabno wasaarad ahaan aan sheegno waa jeclaan lahayn laakiin maadaama hadda la yidhi waqti yaraa qabtaa oo waxa waaye maxaa la yidhaahdaa jaanis intaasa ma lihid waxaan kaliya hor sheegayaa qodobada muhiimka u ah oo saldhigga u ah oo ku jira meeshaan oo la rabo in la ansixiyo oo khusaysa wasaaradda ayaan rabaa horta inaan halkan ka shacabdeeyo qodobka 48aad bejka 28aad sharcigaanu waxa uu
maamuusayaa shididda wuxuu ka hadlayaa dhuxushii dhuxusha waxay ka timaadaa geedaha waana shaqadii wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waagii horetana waa ku shaqayn jirnay haddana waxa waaye mas-uuliyaddeedu wasaaraddaa saaran waxayna hoos imaanaysay markii horeeto wasaaradda hoos imaanaysay dhuxusha sideedaba geedaha laga sameeyaa waa dhirtay ka timaadaa qaabka iskaashatooyin waxaa jiray cadceed iyo maxaa la yidhaahdaa oo ka shaqayn jiray dhuxusha ka shaqayn jiray oo shidi jiray wasaaraddaa sii jirtay maxaa la yidhaahdaa ogolaasho meeshaa la tegi jiray dhulka oo la soo cabiri jiray geedaha ku yaala la olgi jiray xuduuduhu lahaa geedaha la jaraya iyo kuwaan la jarayna u kala xadisanaa qodobadaas oo dhan waxa waaye wasaaradda leenkeeda u jiraa haddana qorshooyin baa jira oo hadda sidaan ugu soo noolaynayn barnaamijkaas ayadoo ah meeshaan hadda qodobkan maxaa la yidhaahdaa ku qoran qodobka 48aad waa xaalufinta dhirta xaalufinteeda marba hadday dhir timaado xaalufinteeda iyo ka warhaynteeda annaga heer waxaan gaarnay aan madaxweynaha salta warqad u soo qorno liina lama dhoofi karo lama waxayn karo markii waa hawshii wasaaradda ay lahayd ka muuqata meeshaas in qolo kale ay rabto inay qaadato markii magacii wasaaradda waa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dhirtii halkaasaa gacanta lala galay qodobka 52 beejka 30aad wuxuu ka hadlayaa maareynta dhul daaqsimeedka uu ka hadlayaa qodobka 52 beejka 30aad wuxuu ka hadlayaa maareynta daaqsimeedka daaqsin yaa daaqay dadka ma daaqay mise xoolaha daaqay waxa waaye hawshii wasaaradda ay lahayd oo xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ahayd ayaa halkan ku taala waxaan la rabaa in la ansixiyo qodobkaas marka waxa waaye halkaas ku qoran tahay waxaan kaloo soo qaaday qodobka 54 beejka 31 barnaamijka cimilada biyada waxaa ku qoran meeshaan qodobka 1 number 1G markaad qortid aragtid waxaa ku qoran hirgelinta barnaamijyada iyo mashaariicda lagu ilaalinayo ilaha biyaha xeebaha dhirta waxaasoo dhan waxa waaye waxa arkaysaa dhirtii la ilaalinaya xeebiyaha la ilaalinaya wixii oo dhan waxa waaye waxaad gelaysaa kalluumaysi macnaha waxa waaye waa complex dhan wasaarado badan hawshood ayaa meeshaas ka muuqda qodobka 72 beejka 44 haddii aad fiirisid waxaa ku qoran ilaalinta maxaa la yidhaahdaa noolayaasha kala duwan koow waxaa ku qoran xakamaynta iyo ciribtirka geedaha shisheeye oo ah invasive specieska geedaha shisheeye waxa waaye waa geedaha invasive specieska waxa waaye waa geedo waxaa laga hadlaya ilaalinta iyo xakamaynta duurjoogta wasaaradda xanaanada xoolaha iskale waxa waaye wildlife waxa waaye waxay hoos timaadaa wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaraddu waxaa jirtay sharci jiray oo la yidhaahdo khayr allaas iyo hadda waxaa ka dhawaajiyey maxaa la yidhaahdaa yarka maxaa ahaa qareenka miya xeer ilaalinta low number 15 ayaa jira oo ah flora and fauna oo ah geedaha iyo duurjoogta waa sharcigii oo la sameeyey 1996 sharcigaas 69 amiin sharcigaas wuxuu sheegayaa qaabka geedaha xoolaha siday yihiin inta la dhoofi karo waxyaabaha maarkino duurjoogta macnaa meelaha kuwa maarkino waxaasoo dhan ka sheekeynaya wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa maaragtay sharcigaas ayaa ka dambeysay waa sharcigaas waana jiraa ayadoo sharcigaas jiraan haddana waxaa meeshaan ku taala duurjoogtii iyo geedihii iyo dhirtii iyo wixii oo dhanba that means wasaaradda hawlaheedii oo dhanba waxaad u malaysaa
in meeshaan lagu qaatay taas marka waxay abuuraysaa dhibaato ka abuuraysaa runtii dood badan maanta ka dhacday waxa laga hadlayna waxay ahayd qodobo masiiri ah oo runtii masiiri ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto heer state iyo heer gobol iyo heer caasimadba waa xilli runtii la joogo waqtigeedii in laga hadlo evidence-ga qaarkii iyo duruufaha maanta waddanka haysto mid ka mid ah in loo gudbaa loo baahan yahay mudanayaal iyo marweyn runtii qodobada laga hadlay badankood waa qaarna way soo laabanayeen intii laga hadlay ayaan qaarne ku darayaa waxna comment ka bixinayaa anoo soo koobay insha Allah waqtiga waa gabagabo salaad baa ay hayso runtii waxa laga hadlayo qodobo aad xasaasi u ah runtii loo baahan yahay in hadba geed la geeyo oo geed socodka oo socdo draftiga badankiisa siday sheegeen mas'uuliyiinta igu horeeyay iyo committee igu horeeyba duplication badan ku jiro waxaan jeclahay review xog lagu sameeyo marka aan u galo commentigayga ama inputkayga article 31 waxa ku qoran normally hore loogu sheekeeyay wasaqeynta biyaha runtii biyaha anagu waxaan ka isticmaalnaa partially wax iska kooban waa ceel iyo wabi iyo wax noocaas aan ka isticmaalnaa iyo xilliga season variation ka roobka daa horta isticmaalka biyaha waa kooban yihiinba by the way waxa jiro system la yiraahdo environment-ga marka laga hadlayo environmental inventory waxa la yiraahdaa jiro oo xukumo ama xugmiyo nooca environment ee dhir ama geed ama biyo ama hawo ee la maareynayo xugminta waxay ka timaadaa inventory-ga ayaa ku xugminaya in marka lagu fikiro horta biyaha waxagee ma coastal dhul cusbale dhul furan dhul hooseeyo dhul hawadiisu yar tahay dhul cimiladiisu nooca tahay wasaqeynta biyaha waxay ku timaadaa environment-ga category ka samaysan yahay marka in lagu daro environment-ga category-giisa system environmental inventory in lagu daro oo sahminta dhulka la sahminayo in lagu daro habka uu u dhigan yahay ama waxa la yaqaanaa topographiga in lagu saleeyo maareynta environment kastoo la maareynayo ilaalinta dhulka qodobka 46 ilaalinta dhulka markaan fiirino ilaalin dhowr hay-adood ama dhowr qaabab ayaa loo isticmaali karaa annaga waxay la haboon in loo isticmaalo kelmadda la yiraahdo ilaalinta bedelkeedii dhowrista dhulka in la yiraahdo aanu ilaalinta intee hay-adaas kala ahaan karto difaaca lahaan karo culum kala lahaan karto system kala lahaan karo marka in lagu daro kelmadda dhowrista dhulka in la yiraahdo oo ilaalinta waa bad weyn bacdama laga hadlayo environment-gii ama deegaankii kelmaddaas waa sidoo sheegay barsoorka igu horeeyay fauna and flora kelmadda loo isticmaalo waa dhowris protection ama ilaalin ma aha marka kelmadda waxaan leeyahay hagar hal noqdaan culimada igu horeysay ama iga sareysay mas'uuliyiinta ee kontonka sano ku shaqeynaya barnaamijkan in ku dhow kelmadda anigu ka inta gradkayga ama xagga cilmi baara aan ku jiray aan ku arkay waa dhowris waxaa jirto qodobka 48aad oo maanta inta aan draftiga akhrinayay igu soo kordhay eray af Soomaali oo runtii qariib igu ahaa waxaan maqli jiray waxa ajaanibta ciidamada ajaanibta iyo dawladaha ajaanibta iyo systemka ajaanibta maanta waxaan arkay eray ku qoran draftiga oo ahaa dhirteena qayb ka mid in loo yaqaano geedka ama geedaha ajaanibta sida garanwaaga oo kaleenta geedaha xarfinta geedaha in la joojiyo totally marka laga reebo geedaha qalaad ama geedka qalaad sida garanwaaga ku qoran marka geedka qalaad ma garanwaaga bas geed qalaad nagu ah wadanka ku yaala ma geeda kala jiro isaga ma loo fasaxan yahay in la gubo oo pollution-kii ka soo baxay environment-ga ma loo xalaaleeyay ma loo ogol yahay mase partially ergaas tafsiir u baahan yahay in la geliyo waa qabaa in comment-gaas lagu darsado haddii la xaalufinayo geedaha waxaa partially la ogolaaday geedaha qaar in aan la goyn karin laakiin geedaha oo ka mid yahay garwaaga xeer ama qodob joojinaya ma arag marka waxaan loo bixiyay geedaha qalaad ayaa lagu soo gaabiyay ayadana waa qaba pointigaas in lagu darsado haddii geedkaas ama geedaha la mid inta loo fasaxa pollution-koodii by the way annagoo og geedkan la yiraahdo magaciisa muxuu ahaa garanwaaga ama cali garoob ama geedjini sida loo yaqaanaba waxaa la yiraahdaa wuxuu ka mid yahay evergreen plant kuwa la yiraahdo inta badan aan caleentooda dhicin ee had iyo jeer iska caleentiisu saaran tahay so waa ka riski badan yahay markaan fiirino absorption-ka
haddii uu ciid saameyn u geysanayo waa ka saameyn badan yahay geedaha Soomaaliya asalkeeda lagu yaqaanay isaga iyo geedo kale oo badan oo evergreen plant loo yiraahdo marka isaga waxaan qabaa in geedka qalaad haddii lagu daray geedaha la joojinayana xeerka la raaciyo haddii qodob kalenta oo ka saaray oo jirane lagu soo daro qodobkaas oo qaba marka waxaan tala soo jeedin lahaa oo comment aan ku soo koobi lahaa maanta dhan waxa laga hadlayay waxa ugu riski badan wadan waxaan joognaa nafta Ilaahay oo nagu abuuray maan inta kale ay take away wada taaba dhamaanteen take away ayaan wada soconaa haddaan maqaaxid galno daan sheex cabayna daan balasi waxaan dhanba almost waa environmental risks marka waxay u baahan tahay waxa tradition oo looga bixi karaa ayadoo judgment iyo pressurized aan lagu bilaabaynin qofka maxaa tradition ah anigu macallin baan ahaa last 10 years jaamacada wax ka dhigay hay'adaha environment-ka waa ka shaqeeyaa 5 sano ugu dambeysay oo hadda waxaan ka soo baxay hay'ad la yiraahdo SEDO oo environment-ka ka shaqeyso cilmi baarana waa ahay environment-ka ka dhex shaqeeyaa runtii generation-ka hadda joogo oo soo socdo within 10 years waxay ka guuri doonaan wax kasta oo nature oo environment-ka ama wadanka lahaa haddii dad u istaago oo solution iyo waaqicigii Soomaaliya ahaan jirtay ku promote gareeya ama ku dhiirigeliyaan la arkin way ka guurayaan waayo sida cunnada looga guuray oo nature-ka lagu guurayaan nature-ka environment-ka lagu guuraya marka waxaan u baahanahay runtii draftiga noocan in juhdi badan la geliyo barofesoradii iyo runtii inta karaankooda awoodi kara ay weliba si adag waqti u geliyaan marka balastigaas oo aad loo kontrolo special maqaaxidihii in lagu bilaabo wixii lagu cuntayn jiray lagu bilaabo thank you so much waxa kale ku soo koobaya in aad loo kontrolo waxa la yiraahdo dadku in lagu baraarujiyo waxyaabaha nature-ka oo aan negative kale ahayn isticmaalaan waa environment-ka dhibaato u geysanaynin in aad loo isticmaalo thank you so much waa maasantiin waqtiga kooban iyo salaadii casrona haysa thank you so much oo u dhabar adeygay taasoo muujinaysa xiisaha uu barnaamijkani lahaa aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhalinyarada media hadday tahay iyo sharci yaqaanada hadday tahay dhammaan howlwadeennada aqalka oo runtii intaan shaqadan soo wadnayba si habsami leh oo dadaal badan noola shaqaynaya waxaan u wada shaqaynaynaa waxa la ood jiidis iyo qaadis way isla gurigeyn barnaamijkan waxaan uga wada shaqaynaynaa waa barnaamij dawliya ummadda Soomaaliyeedna u adeegaya muhiimadiisana waa waxa isu keenkeena haddii sharci kasta sidaa looga wada qayb galo wuxuu noqon lahaa maaragtay sharci hagaagsan fikradiinoo dhan kala duwan oo aragtida hadda professorka si uu arkayay iyo sida xeer ilaaliyuhu u arko waxaasoo dhan waxay noqonayaan wax iskaabay inagana markaan ka soo baxno dawladdii unitariga ahayd haddeer federaal iyo system cusub iyo dawlad cusub iyo maalinba waxbaa soo baxaya waxay imaanaysaa aakhirka in la iswaafajiyo oo ama sidii hadday la sheegay hal wasaaradba ha lagu cesho ama wasaarad walba maaragtay waxeedii ha loo kala gure si un bay noqon doontaa laakiin hadda waxa muuqata inaan process ku jiro processkuna wuxuu leeyahay culays wuxuu leeyahay iska horimaad wuxuu leeyahay mataqaanaa parallel waxyaalo overlapping isku samaynaya marka waxaan samaynaynaa insha Allah bidmillaahi kariim waa isa sixi doontaaye aan u dul qaadano runtii dhalinyarada xeer ilaalinta mar horena waan u yeeray wax badan oo qodobadaas waa aad bay nooga taageereen waa u mahadnaqaynaa waxa fadhiya khabiir wasaaradii deegaanka ah marka wixii khulaaso aan ugu ururiyay insha Allah marka shirku saas inoogu xiran yahay aad baan idinku mahadnaqayaa iyadoo adag tahay inaad nala joogtaan waqtigaas inaad nala fadhideen waa mahadsantihiin dhammaantiin shirkuna waa inoo xiran